kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka dalka TV media qodobada wararka daawa doontaana waxaa kamid ah maxay yihiin caqabadaha horyaala madaxweyne xasan sheekh maxamuud digniin adagna waxaa loo diray ciidanka Mareykanka ee lagu soo celinayo Soomaaliya iyo qaybta dambe warkan oo aad ku daawa doontaan shil sababa dhimashada laba arday iyo dhaawac ah ku dhawaad 50 kale oo ka dhacay gudaha dalka Turkiga qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa warka janalka dalka TV media fadlan daawade haddaad ku cusubtahay janalka nagu soo biro kamid noqo saaxiibada helo wararkaan ku baahino aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalkana si share gareeya laakiin waa inoo dhiiragelin haatan ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan diini maxamed diini oo ah gudoomiyihii hore ee ururka bulshada rayidka ah oo wareysi gaar ah bixinaya ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo isbedelka ka dhacay kadib doorashadii 15 May ee 2022 diini ayaa si gaar ah wareysigan diiradda ugu saaray caqabadaha horyaala madaxweynaha cusub mudane xasan sheekh maxamuud gudoomiyihii hore ee ururka bulshada rayidka ayaa xusay dhibaato xoogan iyo caqabado dalka ka abuurmay inay horyaalaan xasan sheekh isagoo tusaale u soo qaatay social media oo ay si aad u adeegsadeen dowladda isaga ka horeysay sidoo kale wuxuu sheegay inuu amniga joogo meel ka hooseysa halkii uu ku ogaa madaxweynaha cusub ee mar labaad loo doortay hogaanka villa Soomaaliya waa sidoo hadalku u dhigay dhinaca kale wuxuu intaas ku daray in sidoo kale ay sugayaan caqabado kale oo ka dhashay isbedelada ka dhacay dalal badan oo ku yaala caalamka waxaan isleeyahay caqabadaha horey u jiray iyo kuwa ay abuurtay xukuumadii isaga ka horeysay iyo caqabado la xiriira caalamka isbedelka ku dhacay oo siyaasadeed intaas oo dhan waa sugaysaa ayuu mar kale wareysigiisa ku yiri diini maxamed diini hadalkan ayaana ku soo aadayay iyadoo haatan madaxweyne xasan sheekh uu ku hoolan yahay wada tashiyo ku aadan dhismaha dowladiisa cusub oo ay ugu horeyso dhanka xukuumadda gaar ahaan soo magacaabidda ra'iisul wasaare cusub oo laga sugayo inuu ku dhawaaqo geesta kalena digniin adag ayaa loo diray ciidamada Mareykanka ee lagu soo celinayo Soomaaliya hay-adda u dooda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa warbixin ka soo saartay ciidamada Mareykanka ee haatan dib loogu soo celinayo Soomaaliya si ay mar kale qayb uga noqdaan dagaalka adag ee lagula jiro kooxda Al-Shabaab Human ayaa uga digtay ciidamada Mareykanka inay geestaan tacadiyado ka dhan ah bini'aadanimada gaar ahaan waxyeeleynta dadka shacabka xilliyada ay geysanayaan weerarada ka dhanka iyo duqeymaha dhanka cirka agaasimaha gobolka Human Rights Watch ayaa xusay in sii socoshada waxyeeleynta shacabka ay keenayso kalsooni daro dhaxmarta ciidamada iyo shacabka dhaqanka ciqaab la'aanta ee khasaaraha rayidka wuxuu dhaliyaa caro iyo kalsooni daro ka dhexdhacda dadweynaha wuxuuna wiiqaa dadaalada lagu dhisayo dowlad ixtiraam leh ayuu yiri agaasimaha gobolka ee hay'adaasi dhankiisa agaasimaha geeska Afrika ee hay'adan u dooda xuquuqul aadanaha ayaa shaaca ka qaaday inay tahay in ciidamada Mareykanka ay cadeeyaan sida ay uga go'an tahay inay yareeyaan khasaaraha shacabka soo gaara si looga fogaado dhibaateen horle saraakiisha Mareykanka waa inay si cad u cadeeyaan sida ciidamadoodu ay uga fogaadaan in waxyeeleeyaan shacabka Soomaaliyeed inta lagu guda jiro howlgallada military ayuu yiri agaasimaha geeska Afrika ee hay'adda Human Rights Watch Mareykanka ayaa Soomaaliya u soo celinaya ilaa 700 oo askari oo hore looga saaray dalka kuwaas oo garab siinaya ciidamada sida gaarka u tababaranay danab ciidankan ayaa hore dalka waxa uga saaray madaxweynihii ka horeeyay kan haatan xukuuma Mareykanka waa Trump kaas oo amray in gabi ahaanba in ciidamada Mareykanka laga soo saaro Soomaaliya marka laga reebo tababarayaal loo reebo ciidanka Soomaalida ah kuwa oo haatanba ku sugan gudaha dalka Soomaaliya si kastaba go'aankan ayaa ku soo aadaya xilli haatan Soomaaliya ee ka dhalatay dowlad cusub isla markaasna mar labaad madaxweyne loo doortay xasan sheekh maxamuud waagaagii daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa shil sababay dhimashada laba arday iyo dhaawaca 42 kale ayaa ka dhacay gudaha dalka Turkiga bas wade arday jaamacadeed oo wax ka dhigata gobolka Anatolia ee dalka Turkiga ayaa galeen shil sababay dhimashada laba arday halka ay dhaawacmeen 42 kale sida ay xaqiijiyeen saraakiil caafimaad oo warbaahinta la hadleen kooxaha gurmadka degdega ayaa tageen goobta iyagoo qaaday ardayda dhaawaca soo gaaray si ay u helaan daryeel caafimaad maamulka gobolka Anatolia ayaana sheegeen in la hubinayo dhaawacyada soo gaaray ardaydaasi maamulka jaamacadda
ay wax ka baranayeen ardadan ayaana arrinkan ku tilmaamay musiibo maadaama shilkani uu sababay geerida 2 arday iyo dhaawaca 42 kale oo baaris lagu wado sida ay wax u gaareen gobolka Anatolia waxaa ku badan shilalka maamulka gobolkaas ayaana sheegeen inuu wax ka qaban doono waxyaabaha sababa shilalka si loo yareeyo halista joogtada ah ee laga soo warinayo waa sida dalku dhigeen qayb ka mid ah gudaha dalka Turkiga ayaa inta badan waxaa ka dhacaan shilalka ka dhasha gawaarida basaska kuwaas oo ku ragmada wadooyinka waaweyn ee dalkaas ama ku dhaca goobo bohola inta badan waxaa loo sababeeyaa cawaaraha gawaarida ay ku soconayaan waqtiyada ay isticmaalayaan wadooyinka waaweyn ee gudaha dalka Turkiga kuwaas oo dhisme ahaantooda la sheegay inay adag tahay in gawaaridu ay si sahlan isku xakameeyaan sidoo kalena shilal dhowr ah oo ka dhacay gudaha dalkaas ayaa dowladda dalkaasi waxa ay sheegtay inay qaaday tallaabooyin looga hortagayo shilalka ku soo noqday qayb ka mid ah gobolada dalka Turkiga inta badan shilalka ayaana waxa ay ka dhashaan gawaarida u kala safraysa gobolada dalkaasi kuwaas oo waqtiyada ay isticmaalayaan wadooyinka waaweyn la sheega inay la kulmaan falal ku aadan shilal kala duwan haba ugu badnaatay gawaarida isku dhacda iyo kuwa wadooyinka ka baxa ee ku dhaca goobaha boholada ah isla markaasna keenta dhimasho iyo dhaawac ka dhasha gawaaridaas waqtiyada ay shilalka galaan gobolka Anatolia oo inta badan shilalka ay ku soo laabteen ayaana ka mid ah goobaha sida weyn ee uga dhacaan shilalkaasi waxaana haatan laga dhursugayaa warka ka soo baxay maamulka gobolka oo ku aadan inay yareyn doonaan dhibaatooyinka iyo sida ay wax uga qabtaan shacabka gobolkaas ayaana dhowr mar soo jeediyeen cabashooyinka ku aadan shilalka ku soo laabtay gobolkaasi waxayna haatan musiibadaasi saameysay qaar ka mid ah ardayda gobolka maadaama ku dhawaad 50 arday ay wax ku noqdeen shilka ka dhashay baskii ay saarnaayeen guud ahaan daawadayaal wanaagta warkii oo aad kala socoteen janalka dalka TV Media fadlan daawada hadda nagu cusubtaan nagu soo biro kamid noqo saaxiibada hela wararkaanu ku baahina janalkan aragtidiina halkaas noogu reeba muuqaalkan si share gareeya laakiin waa inuu muhiim wana kuma santiin daawashada iyo socodka warka janalka dalka TV Media